الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها الأحبة في الله، waxaan ku jirnaa bishii Shacbaan ee ka horeysay bisha Ramadaan. waqti walba iyo xilli walbana wuxuu leeyahay cibaadaad munaasab ah oo nabigeena salawaatu rabbi wa salaam alayhi ka sugan, ama si guud ama si gaar ah. bishan cibaadaad fara badan bilihii kale kula mid tahay, laakiin nabigeena salawaatu rabbi wa salaam alayhi waxa uu si gooniya ugu khaas yeeli jiray inuu soonka badiyo, bishan inuu soonkeeda badiyo. Aisha waxay leedahay radiyallahu ta'ala anhuma, ma arkin nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam oo bisha Shacbaan soonka uu soomayo bil kale soomaya ma arkin. soonka ugu badan ee sunnaha ah bisha Shacbaan buu nabi Muhammad soomi jiray bay tiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi. xadiidka riwaayo kale oo tiisa waxay leedahay Aisha radiyallahu ta'ala anhuma, nabigu bisha Shacbaan oo dhan waa wada soomi jiray. riwaayo kalena waxay leedahay Shacbaan oo dhan buu soomi jiray in yar mooyee, wax yar ayuu afuri jiray, inteeda badanna waa soomi jiray nabigu sallallahu alayhi wasallam. xadiid kale oo Aisha ay warinayso sunan Abi Daawud ku yimidna waxay leedahay nabigu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi bisha uu ugu jecel yahay inuu soomo Shacbaan bay ahaan jirtay. soonka uu soomo yahay bisha Shacbaanna wuxuu ku xiriirin jiray soonka bisha Ramadaan. caaday u ahayd nabi Muhammad salawaatu rabbi wa salaamu alayhi. marka waxa haboon bishan in la badiyo soonka, لأن سيدة النبي محمد صلوات ربي والسلام عليه هذا أركته إسقى عبادة ملك خاص يليه، أما وقت يدا كم إذا عبادة خاص يليه، أما طول كمل كم إذا عبادة خاص يليه، حلقة أما طول كاس عبادة علاقة خاصة كدحيس. حكمة باكو شرطة ما شرطة وحلا إلى هذا شارعة الله تبارك وتعالى رسول كيس صلوات ربي والسلام عليه إني وقت عبادة إسلاف في رصدان، أما مال يبقى عبادة إسلاف في رصدان وإسكت عضو. حكمة الآن ما شرط، حكمة باكو شرط وبيشن واحد لو صومي والنبي قصون كأوبدين شري صلوات ربي والسلام عليه. حكمة باكو شرط، حكمة قار كم إذا النبي قاتل المامي صلوات ربي والسلام عليه وعائشة وحي ويديس رسول الله بيشن محاد صون كأوبدي ساعة. wuxuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam bishani waa bil ay dadku moog yihiin oo halmaansan yihiin ilaahay cibaadadiisa. laba bilood bay u dhaxaysaa. bisha Rajab leeydah oo ashhurul hurum ka kamida, afarta bilood ee xurmada leh goonida ah bay kamid tahay, iyo bisha Ramadaan oo bishii soonka iyo cibaadaadka ah. labada bilood oo bilaha xurmada leh kamid tahay, midna ay bishii Ramadaan ba tahay. labada bilood bay u dhaxaysaa, dhexday ka baxdaa. marka dadka badankood iyagoo moog oon kaba warhaynin oo cibaadada ilaahay iyo taacadiisa halmaansan bay bishu dhaaftaa. sidaas daraadeed baan soonkeeda u badinayaa buu nabigu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi. maxay tilmaamaysaa waqtiga ay dadku cibaadaadka ilaahay moog yihiin oo ama ka hurdaan ama ka sii jeedaan, xilligaasoo kale ruuxa cibaadada ilaahay ku mashquulo adoomada khilaafa oo ghaflada ay ku jiraan garab mara, wuxuu leeyahay mudnaan khaas u leeyahay, ajir siyaada abu leeyahay. maxaa yeelay waa xilli la wada halmaansan yahay, asaga ku baraarugsan oo dadkii ka dhaxbaxay.
وميدا كنتي نصوص فربضان إنay ku timaado oo meelo kala gedisan ku timid ruuxa xilliga noocaas oo kala ah cibaadada Ilaahay tabaaraka wa taala in ajir siyaada la siiyo mudnaan khaasana nabigu siiyo salawaatu rabbi wa salaam alayhi waxa kamida maalan asbaabta jannada lagu galo nabigu wuxuu kamid dhigay salawaatu rabbi wa salaam alayhi dadku markay hurdaan habeenkii oo cid Ilaahay xusaysaba ay yar tahay intaad hurdada ka soo kacdo inaad Ilaahay xusto يا أسباب الجنة لو قال على جنب الدقي لأنه واحد ضدك أي هالمنسيه وحكم إذا مثلا نبي قال صلوات ربي والسلام عليه وحوت المامي العبادة في الهرج كهجرة إلي مركي فتنة بعضه ويضدك إسلين يا oo kuraas iyo adduunyo iyo jago iyo dhul iyo balaayo la isku laynayo la mashquulo ilaahay cibaadadiisa iyo khayrkana laga kala tago la halmaamo adoonka xilliga cibaadaysanaya ee cibaadada ilaahay ku mashquulsan wuxuu la mid yahay nabiga sallallahu alayhi wasallam sidii mid aniga ii soo hijrooday oo kale leesh laana waa xilli dadkii ay aafa iyo balaayo gashay fasaadeen انت عباده الهي كبراروكسنا اي يرتهي وهكذا النصوص فربضان باكو ايمانيسا خليغا لا اسهلمامو ددكو سيخدان عباده موغيهين ان عباده لوو مشغوله اجر سياده باي لهده تاوا قدبك كوباد النبي كو عليه صلى الله عليه وسلم صونك بشن بدينته او بدين جيره علده لبادي وحو النبي كو عليه صلى الله عليه وسلم وحو يري بشاني وبش اعماشا كور لو سي قادو adoomadu waxay sameeyeen sanadka taa'aadki khayraadki wixii la sameeyay baa kor la geeyaa oo kor loo sii qaadaa saas daraadeed waxaan jeclahay anigoo sooman in amalkayga la sii qaado ayadana waa sabab kale oo nabigu ku tilmaamay salawaatu rabbi wa salaam alayhi macnaha inoo soo baxay waxa weeye nabigeena si aan ugu dayano salawaatu rabbi wa salaam alayhi bishan cidii kari karta soonkeeda habadiso hadiyigi nabigeena way salawaatu rabbi wa salaam alayhi dariiqiisii arinta labaad ee baraarujinta mudani waxay tahay bishan markay ay kala baranto habeenka niska ay tahay waxa dhacda arin weyn arin cajiib ah xagga rabbi ka timi tabaaraka wa taala maxay tahay arintaas wuxuu nabigu yiri salawaatu rabbi wa salaam alayhi habeenka bisha shacbaan ay kala baranto nis noqoto habeenkaas allah baa wuxuu daalacdaa adoomadiisa dhamaantood intuu abuurtay oo dhan buu daalacdaa markuu daalacda kadibna wuxuu u dambi dhaafaa dhamaantood dambigooda waa saamaxa illa laba ruux mooyee ruux mushrik ah oo ilaahay iyo adoomadiisa ka dhaxaysiiyay wixii ilaahay gooni u lahaa xaqi alla gooni u lahaa oo cibaadadiisa ah oo tawxiidkiisa oo kaliyeeridiisa ah ninkii wadaajin galay oo ilaahay iyo adoomadiisa ka dhaxaysiiyay kaasi ilaahay marna u dambi dhaafi maayo waatan quraanku tilmaamayo إن الله لا يغفر أن يشرك به الله مدافو إن إسجى يأدومدي سوحل وداتي الله يسقدره إلهي خلق جيسا وحا أجوني ده إن أقول له حسه والدم بإله اللي جعله كأجوي وي الدون كان وحو كان يا إن الدم بجاجة هبيرات إلا السامحين آخرنا وحو كان يا إن يتشنده حران كاته النار نعد كواريس ساس تراد مشرك إلهي هبين كأودم بدافع مايو كلا بعدين لودم بدافع إنه وحويان ومشاحن يا وعقد اللو وحقدي له روح حقدي ينعيب قلبك أبوهيا روح مسلمة أسجن الله دافع مايو وعجيب مشرك جرنا
kan uurka ka jiran ee muslimiinta colaada u haya ama xiqdiga u haya ama u xanaaqsan maxaa lagu maagay sababtu wax weeyaan u fiirso meesha la geeyay isaga iyo mushrigii baa la isdaba dhig isla isgarab dhigay waa la fogeeyay waxaan meesha ka fahmaynaa ilaahay tabaaraka wa tacaala dambiyada laga galo kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid ah inuu qalbigaagu jiran yahay oo uu jiran yahay dadka ilaahay adoomadiisa ee mu'miniinta ee muslimiinta waad nacab tahay xiqdi baad u haysaa xasad baa kugu jira nacayb baa kugu jira waa wixii ilaahay diiday tabaaraka wa tacaala meesha kaliyana ma ahe munaasabaad fara badan xiqdiga iyo calool xumada kugu jirteed muslimka u hayso waxay keenaysaa meelo fara badan inaad ilaahay naxariistiisa ka qado dambi dhaafkiisa ka qado halis u gasho rabbi cadaabkiisa iyo cuquubadiisa tabaaraka wa tacaala waxaa nabigeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh inuu yidhi maalin kasta oo khamiisa iyo maalin kasta oo isniin ah acmaasha addoommada kor loo qaadaa ilaahay baa acmaasha loo geeyaa markaasaa ilaahay wuxuu u dambi dhaafaa cid kastoo addoommadiisa ka mid ilaa cid mushrigoo ilaahay iyo addoommadiisa xaqii alle ka dhaxaysiiyey mooye yaa kale nin kalaas isagana aan loo dhaafayninoo maalinkaasi isagana aan khamiista iyo jumcada marka acmaasha la qaaday aan loo dambi dhaafaynin waa kee wuxuu nabigu sal lla alay wasalam waa ruuxa isaga iyo walaalkiisa muslimka ay ka dhaxaysa shaxnaa xiqdi uu ka dhaxeeyo alla wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala labadan xiqdiga iyo xumaanta isu haya dibdhiga arrinkooda u kaadiya ilaa ay ka soo heshiiyaan meelo badan baad qadi marka lianna ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ugu jecel yahay acmaasha wuxuu ugu jecel yahay waxaa ka mid a in qalbigaagu saliim yahay qalbigaagu fayow yahay qalbigaagu xaadhan yahay dadka muslimiinta wada jecesha xumaan aadan qalbiga ugu haynin qalbigaagu inuu u fayow yahay nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayaa waxaa la weydiiyey dadka yaa ugu fadli badan rasuul ilaahayow wuxuu nabigu yidhi sal alla alay wasalam ruux kasta oo maxmuumulqalbi ah saduuqu lisaan qalbigiisu maxmuum yahay carabkiisuna run badan yahay waxay yidhaahdeen garannay midka carabkiisu run badan yahaye qalbigiisa maxmuuma maxaa laga wadaa maanaan fahminen noo caddee wuxuu nabigu yidhi sal alla alay wasalam waxaa laga wadaa huwa attaqiyu naqiy waa midka qalbigiisa alla ka cabsi ku jiro qalbigiisuna daahir yahay oo nadiif yahay waa sii wada nebigu sal alla alay wasalam wuxuu yidhi waa midka qalbigiisa aan dembi ku jirin gardarro iyo xadgudub iyo dulmi ku jirin hilli iyo khayaana ayna ku jirin xasad uusan qalbigiisa ku jirin kaasaa ilaahay addoommada ilaahay ugu fadli badan uguna jecel yahay saas daraaddeed haddaad qalbiga xumaan ku hayso xaaladahaasi iyo waqtiyadaasi munaasabka qiimaha badan ee laysa saamaxaya waa lagaa reebi waad ka hadhaysaa waa inaad marka qalbigaaga nadiifiso oo aad daahiriso oo aad ka dhigto qalbi saliim oo fayow nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh 3 beri oo isku xigtay buu saxaabadiisa uu la fadhiya wuxuu ku yidhi waxaa idiin soo geli doona nin ahlu janno ah 3 beri ba hal nin baa soo galay ninkii hadday daba galeen saxaabadu ay fiiriyeen war ninkan 3 beri janno looga markhaati kacay xaalkiisu muxuu ah hadday raadiyeen waxaa caddaatay ninkaasi cibaado badan oo uu ragga la dheeryahay ma jirin soom badan iyo salaad badan iyo cibaadaad uu saxaabada kale la dheeryahay ma soo bixin laakiin maxaa la helay waxaa la helay oo uu sheegay hal habeen ama seexanin anigoo qalbigayga ruux muslima xumaan ugu haya waa midda uu meesha ku gaadhay waay sidaas daraaddeed haddaad ilaahay dembi dhaafkiisa rabto iyo acmaashaada in meel fiican la geeyo qalbigaaga ka shaqeeyo hagaaji xiqdiga iyo xasadka iyo xumaanta iska saaro iska nadiifi allah tabaaraka wa tacaala mu'miniinta markuu tilmaamayay 3 qaybood buu ka dhigay fi suurati al-hashr qaar waa muhaajiriin qaarna waa ansaar
qaarna waa qolada saddexaad oo tilmaantan la siiyo walladina jaa'u min ba'dihim labada gadaashooda kuwa yimid ee muuminiinta damba ah ee dib ka yimid yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iiman waxay dhahayaan rabbiga noo dambi dhaaf annaga iyo walaalahanagii nooga horeeyay iimaanka noo dambi dhaaf wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina aamanu qalbiga naga allah xiqdi ha gelinin xiqdi aanu hayno dadka muuminiinta ilaahu qalbiga ha naga gelin marka xiqdi haduu qalbigaaga haysto dib kugu filani waa ku hayaa dib in kugu filani waa ku haysataa aimada salafka ridwaanullaahi calayhim qaar kamida waxay ku fasireen xadiidkaas uu nabigu sallallahu alayhi wasallam habeenka shacbaan ay kala baranto ilaahay waa u dambi dhaafaa adoomadiisa ilaa mushrik iyo mushaahin mooye aimada salafka qaar kamida waxay ku fasireen mushaahinka waxa laga wadaa waa ninka saxaabada nabiga sallallahu alayhi wasallam uqdada iyo nacaybka u haya sida imaam awzaa'i alayhi rahmatullahi ku fasiray waxaan shaki ku jirin xiqdiga kugu jira dadka aad u hayso sida ay ilaahay ugu kala dhow yihiin buu dambigu u kala weyn yahay dad xiqdi iyo xasad iyo nacayb loo qaado waxa ugu daran uguna dambi weyn saxaabadii nabiga sallallahu rabbi wa sallallahu alayhi lianna waxay ahaayeen awliyadii ilaahay doortay ummadda nabi maxamed ka xushay saabiqiintii bay ahaayeen ardadii nabi maxamed bay ahaayeen kuwii quraanka iyo sunnadaba lagu amaanay lagu taskiyay bay ahaayeen kuwa markaad xaqdi iyo xasad u qaado shaki ma laha hadaadan gaal ahayn ina dambiile xaq aad uga fog inaad maayil ilaahi tabaaraka wa taala quraanka kariimka wuxuu ku sheegay markuu ka hadlay saxaabadii nabiga iyo siday nabiga u garab istaageen u xoojiyeen ay dhinacyaha uga galeen oo diinta u xoojiyeen allah wuxuu yiri tabaaraka wa taala liyaghiidha bihimul kuffar gaalada in lagaga xanaajiyo oo ciil la bado daraadeed buu allah saa u yeelay ninka xanaaqsan ee ciilkii cadhada u haya saxaabadii nabiga sallallahu alayhi wasallam aayada waxa laga qaadanayaa inuusan muslim ahayn aymadii salafka qaar kamidana saa u daliishada ridwaanullaahi calayhim sidaas daraadeed saxaabada inaad cuqdo u qaadaay mas'ala sahlan ma aha cuqdada iyo xiqdiga la qaadato ugu culus waxa soo raaca aymadii salafka ridwaanullaahi calayhim ardadii saxaabadu taabiciintii kuwii ka dambeeyay aymadii saddexdii qarni culimada muslimiinta ee sunnada u taagan ee diinta faafinaya kuwaasa ugu daran inaad xiqdi iyo cuqdad u qaado dadka kale muslimiinta guud ahaan ayaguna waa soo galayaan maxay nabigu ma kala qaadinta salawaatu rabbi wa salaamu alayhi laakiin way sii kala culus tahay saas daraadeed xiqdiga shiicada iyo raafidadu ayda ay saxaabadii nabiga caayayaan xiqdiga ay u qabaan colaada ay u qabaan nacaybka ay u qabaan ayagiyo inta raacsanba shaki malaha in ay galayaan xadiidka nabiga salawaatu rabbi wa salaamu alayhi fayaghfiru li jamii'i khalqihi illa limushrikin aw mushahin dad ilaahay doortay markaad adiga ku mashquulsho shaqo ka dhigato ya man aada li waliyan faqad adantuhu bil harb bu allah yiri tabaaraka wa ta'ala awliyadayda ruuxi la colaytama aniga dagaal u cilaamiyay ha ku tala gala dagaalkayga saxaabadii nabiga ninka ku mashquulsan ee laga kari laayahay dagaal rabbi tabaaraka wa ta'ala ayuu ku jira nin ilaahay dagaal la galayna shaki ma laha inuusan marnaba raynaynin oo laga adkaanayo oo ilaahay tabaaraka wa ta'ala adduuniya aakhiraba uu ciqaabahayo uqubada rabbi iyo cadaabkiisa inuu halis ugu jiro muslimiintu marka ha ka nabad galeen qalbigaagana u fur يا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سلوكو قدام بالدافع وادنت هذه مصلحة هذه عافيتك سامح والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين هذا علي سنتور دبا دريميسو قرصو دبكاغا عرضا هذا علي ددكنا اسك سامح وعافي ألا تحبون أن يغفر الله لكم يا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه مركو كحناقي ننكي مصطح بن أثاثة
markuu ku xanaaqay oo Caaisha dadkii ku been abuurtay ka qayb galay oo beenta faafiyeen abuuradka kadibna uu yiri dib dambe inaanan u masruufaynin qaraabay ahaayeen ilaahay aayaduna soo dejiyay tabaaraka wa taala wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum warmiyaydan jeclayn in ilaahay idin dhaafo idin saamaxo jawaabtu waa haa waan jecelnahay ilaahay adoomadiisa saamaxa عفية قلبك أفرا ونصيحية مسلمين تجعلوا متك قلوا عسنة دنبك كلي دنبك يصنع لكن يسقها النعل يا دنبك يأهواذا يحمانتا لفت هذا لنع لكن شخصك مسلم كان لما نكهضه لفيه سوى الروح مسلم عاصبها هذا سيداس درادد دنها الدنيا دقالك كصاب سني ملكو جين ماي xogaa baa idin dhex maray sax hadii shaxnaaga adu haysa uu yahay ruuxani yaani fikirka uu xambaarsan yahay wuxuu yahay fikir khariban diin ahaan baad uga hijrooto wuxuu watiya mabdiisa khaldan taasi waa mas'ala kale laakiin waxaad u dagaalsantood u xanaaqsantood u nacabtahay waa adduunyo kursi baa idin dhex maray xoolaa idin dhex maray xogaa baa idin dhex maray taamaya shaxnaaga noocaas lama ogola sidaas daraadeed si aan jaaniskan uga faa'iideysano waa habeenadan inugu soo aadan way bisha Shacbaan inay nis noqoto waa habeenadan inugu soo aadan qalbigaaga waqtiga yar ee laaban intaad ka shaqaysiiso daahiri iyo nadiif insha Allah ta'ala si ilaahay qalbigaaga u daalacdo kadibna lagu dambi dhaafo biidin ilaahi tabaaraka wa ta'ala oo uga mid noqoto dadka la saamaxayo habeenka biidin illah sallu wa sallimu ala khatamil anbiya'i wal mursalin allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warda allahumma 'an as-sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك